saraakiil iyo qaar ka mid ah ciidamada asluubta oo muddo 10 cisho oo u socday tababarkani sidoo kale tababarkani waxa bixinaysay hay'adda UNDC iyo maamulka ciidanka asluubta wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka Xuseen Axmed Caydiid ayaa ugu horeyn ka waramay saraakiishan iyo hogaamada ciidanka asluubta ee casharadani qaadanayay iyo sida looga baahan yahay inay casharadani ay barteen ay ka muuqato shaqadooda taliska guud ahaan ciidanka waxaanu ka doonaynaa ama looga baahan yahay higsi dheer inuu yeesho meel uu higsanaya inaanu yeelano time halkaa ku salayno ama waqti aynu dhahno marka la gaaro halkaa waxaanu u baahanay muddada waxaanu inaynu halkee taagnaanaa baynu u baahanay oo situationka ama xaaladaynu maanta ku sugannay iyo xaaladda aynu higsanayno 5 sanadood ka bacdi ama 3 sanadood ka bacdi inay noo soo waraato oo dabadna dariiqii aynu ku gaari lahayn haddii aan la yiraahdo uu inoo sawiran yahay maxaad aqoon kordhisaa maxaad agab kordhisaa maxaad dhismo kordhisaa maxaad tababar iyo xirfad kordhisaa taliyaha ciidanka asluubta sareeye guuto Maxamed Xuseen Faarax Xiirane ayaa sheegay in tababarkan uu ku saabsanaa barashada shaqada xabsiyada xeerarka xabsiga iyo casharo dheeraada oo lagu kobcinayay aqoonta ciidanka asluubta taliyuhu waxa kale oo ku dheeraaday in duruustani ay barbilow aanay u noqon doonin ciidamada asluubta ay si joogto ah u heli doonaan aqoon dheeraada isagoo ka hadlayana waxa uu yiri waxaanu ka baahidaal ma hada casharkii la dhigto in meel la iska dhigo inta la qaato waxaan rabaa in lagu dabaqo casharkii halkaas ka qaatay iyo laswaafajiyo iyo shaqadii ka socotay xabsiga baa loo baahan yahay dhammaanteen xilba naga oo saaran qof qor wax ma wadi karo dhammaanteen waxa loo ka baahan yahay nin walba xil ka saaran goobta uu joogo meesha uu joogo inaan ceeb ka iman oo hore u socono John oo kamid ah hay'adda UNDC ee tababarkani fulinayso isaguna halkan ka hadlay ayaa sheegay in markasta la garab taagan yihiin ciidamada asluubta sidii ay u siin lahaayeen tababaro dheeraad oo ku saabsan aqoonta ciidanka gabagabadiina waxa halkaasi wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo taliyaha ciidanka asluubta ay shahaadooyin ku guddoonsiiyeen saraakiishii iyo ciidamadii asluubta ee tababarkani dhameysay